لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يعني عمل خير وإلهي اللو قد واده وحا أغفض بدن صنتك أردن مالمهيسا طبعا كان مالموت عملك اللي ما دعي أغفض بدن والفجر وليال عشر عظمدooda iyo maalmahan qiimahooda waxa ku tusaya xataa habeenadooda ayuu rabbigan ku dhaartay tabaaraka wa taala fajarkan ku dhaartay buu rabbi yiri iyo habeena 10 ah sanadkii hore wixii dambi ahaa iyo sanadka soo socda wixii dambi ah laba sano dambigood maalin soonkeed baa ilaahay kaaga dhaafaya waxay kamid tahay 10 ka bari fadaa'ishooday kamid tahay waa 10 bari oo wata khayr siyaada ah iyo fadli siyaada ah أيها الإخوة والأخوات الله تبارك وتعالى حكمة ديسا حاشا دير هي قلت ديسا الدوم ديسا وكقل ديسانا يضرتت أي ربي تبارك وتعالى الدوم ديسا وحوسيي واختيوه فضل السيادة عليه هي تشانيسيو أي إلهي أدوادان تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى خلق جيسا قاربو قارك كلك فضلي ملائكتو كلا فضلي وبشركو كلا فضلي أنبياء يا رسوشو كلا فضلي ضلك يا الزمن كأيو كلا فضلي قاربو قارك كلا السيادة كالسيي حكمة ديسة حاشا دير ترتير زمن كان أن هذا كتشرني وقت كان أن كتشرنه وكملها وقت يدا الله تبارك وتعالى وسيادة يا فضلك السيي بكمله ذي الحجة أما عرفة سيد الصوالد وتقان bishan bilowgeeda ilaa 10 bari oo horeeya waa 10 bari oo wata khayr siyaada ah iyo fadli siyaada ah tana waxay ka sugan tahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi waxa uu rasuulku leeyahay ma jiro maalmo amal wanaagsan oo la sameeyo uu ka khayr badan yahay 10 kan maalmood dhexdooda amalka la sameeyo يعني عمل خير وإلهي اللو قد واده وحا أغفض بدن صنتك أردن مالمهيسا مالمهن طبنك بشد الحجة عملك اللي ما دعي أغفض بدن صحابة رضوان الله عليهم وحي النبي قويديين أرين أيها أكتوضا عنك أهيد إني وحل السماية أغفض بدن تهيد مركو النبي قويد عمل مالمهن السماية أغفض بدن وحيد هذا الرسول إلهي حتى ساس درادد با رواية وحاسي عدينيس ابن حبانو سؤال النبي قال نينكو ويديه وحيد رسولك إلهي ومالمها المالما لمد وان إيقا أهين والروح او جهادي حتى ما يقع كفضل بدن أيقع كفضل بدن بن رسول الله عليه وسلم إلا الروح فرس كيسين اللي بقون قويي السجد دي كيسين اللي داريي مويي وحبا الله صلى الله عليه وسلم سورة كلية النبي صلى الله عليه صلوات ربي وسلام عليه وحد قلن كرتان مركة يعني منزلة إيه بوسك أي كتشيران مالمهن عملك الله السمية طاعة لليمات بي أهر سريسا قيمة وين ويكوفر لذا إلهي أكتس تبارك وتعالى سيداس دلادة جانس كان إن لقى فائدة استيء باهي عظمه ذا إيه مالمهن قيمة هذا وحا كتوسيا حتى هبين ندو ذا أيو الربيقين كردارتي تبارك وتعالى فجر كان كردارتي مربيري iyo habeena 10 ah mufasiriinta salafka iyo culimadu say u badan yihiin 10 ka habeenay Allah ku dhaaranayo waa 10 ka habeen ee bisha dilxijja ugu horeeya rabbigeena tabaaraka wa taala haduu khalqigiisa qaar kamida ku dhaarto sha'ni khaasa ku jira habeenadan marka sir khaasa ku jirta waxa rabbigeen ugu dhaaranayo tabaaraka wa taala waxayna muujinaysaa fadligu inuu habeenadana ku jiro maalmahana ku jiro laakiin maalmuhu ku badan yahay sida xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam cadeeyay maalmaha ayuu fadligu siyaada yahay amalka la qabanayo muxuu yahay fadliga si looga faa'iideysto ruuxu uga faa'iideysto waxa loo baahan yahay xadiiska sida ku cad nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al-amalu salih waxa soo galaya hadalka amal kasto oo wanaagsan وشروط صلاح أفصدي
عملك الصالح وحا سوغلي الصلاة ولا بتصدو تي واجب كايد ولا إلاليو يتي سنة هيد ولا بتصدو وحا سوغلي عملك الصالح الصونك وحا سوغلي الصدقة وحا سوغلي dadko diinta la baro khayrka loogu yeero xumaantana laga reebo waxa soo galaya digriga rabbi tabaaraka wa taala iyo xuskiisa iyo quraanka akhriskiisa wax kasta amal kasto la jideeyo ilaahi loogu dhawaado ayaa soo galaya al-amalu saalih sidaas daraadeed majaalaadka khayrka ee adoomadu ilaahi ay ugu dhawaan karaan iyo turuqdu aad bay u fara badan tahay waana rabbi tabaaraka wa taala موسم ugu talagalay inay dadka ahlul khayrkii tartamaan in la tartamo oo muusimka loo tartamo sida xilliyada mawaasimta adduunyada iyo tijaarada iyo ganacsigu uu taagan yahayba tartan loogu galay adduunyada oo bilaha suuqyada iyo ganacsigu kala socdo sida dadaalka siyaadada loogu galo si aan lagaaga faa'iido badanin waxa ka haboon muusimka aakhiro in aan tartankiisa lagaaga badanin oo ka faa'iideysigiisa aan lagaaga badsanin oo ribixiisa aan lagaaga badsanin fikirku inuu dhanka u bato baa laga maarmaan ah sida aad dadaalka ugu jirto muusimka tijaaraadka iyo beecaha iyo shiraha aan nin walba ka faa'iido badsa u leedahay soo kama habboona adduunyada iyo ganacsiga adduunyada wax ka khayr badan oo ganacsi aakhira ah إلى ترتنكيسة قشر لا شك عدي عقلي لو قرشله الله نوافجيه وقرن كره سيدا سدراديد إنه كفى إذا السنة وطاعة ربي تبارك وتعالى أينه بضنه يا لقى مرمانه خاصة النبي قال صلوات ربي وسلامه عليه حديث كأحمد الصوصاري وحليه هاي مالمهن ومالمها عمل السمي إلى هاي وقدش علي هاي وحد بديسان تهليشة لا إله إلا الله وحد بديسان تكبيرة الله أكبر وحد بديسان تحميدة الحمد لله ذكرك ربي تبارك وتعالى عرب كينا كوبدية وحمعناها يسوون التلمامة آيات القرآن في سورة الحج ألا كويل تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إني إلهي حسان ما المولى يقانو لحظوظ إني الله حسان وحولها وحلالي كركوضا أي الله كو حسان مفصلين تسيء بديهين سلفكو وحيليهين مالمها معلومات كإلهي الله حسيو وتبنك برية بشذ الحجة أهرية ساسيء بديهين مفصلين سيداس دراديت مالمهني ومالمه خير كودو السيادية هاي تدك مسلمين تانا لدوين إن إسو دياريان سيء فايدي سلها وحيالها لغا فايدي سنكر وحا كمي دفصونك خاصة maalmaha dhanna wala wada soomi karaa marka laga reebo maalinta tobnaad oo maalinta ciida sagaalka bariye ka horeeyaba wala soomi karaa bal sunanka waxa ku sugan Abu Daawud iyo Tirmidhi iyo an baadhi azwaaj an-nabi sallallahu alayhi wasallam in ay tiri nabigu wuxuu soomi jiray tobanka wuxuu soomi jiray maalinta Ashura bisha Muharram bil walbana saddex bari buu ka soomi jiray marka sagaalka bariye hore wala soomi karaa ala raajih sidoo kale maalinka sagaalaadi isaga hadalba kuma jiraba waa maalinka aadka u fadli badan oo maalinta Carafa ah nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa la weydiiyay maalinka soonkiisa la weydiiyay xujaydu Carafa taagay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam maalinkaasi waxa ilaahay ku dhaafaa maalinka soonkiisa ilaahay wuxuu ku dhaafaa oo ku cafiyaa sanadkii hore wixii dambi ahaa iyo sanadka soo socda wixii dambi ah laba sano dambigood maalin soonkeed baa ilaahay kaaga dhaafaya waxay ka mid tahay tobanka bari fadaa'ishooday ka mid tahay maalinka tobnaad oo maalinta ciida ah ayadana sidoo kale waa maalinta xajku ugu weyn yahay yawmal hajj al-akbar waa maalin aad u fadli badan waa iyada lama soomi karo laakiin taa'aad kale aad u fara badan baa maalmaha lala iimaanaya oo ay ka mid tahay maalinka iyo saddexda bariye ka dambaysa iyadana waxa mashruuca oo aad iyo aad iyadana u fadli badan in uu ruuxu haduu heli karo xoolo qalo ugu yaraan neef ari ah neef lo ah neef geel ah ka badan oo udxiyaysto
ayadana acmaasha waaweyn bay ka mid tahay xajka marka lagu jiro acmaashiisa kuwa ugu fadli badan waxaa ka mid ah talbiyada oo kor loogu dhawaaqo labbayk allahumma labbayk iyo xoolaha qalitaankooda acmaasha manaasigta xajka kuwa ugu fadli badan uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam sidoo kale dadka muslimiinta een xajka acmaashiisa ku dhex jirin ee dhulkoodii jooga in ay udxiyeystaan oo xoolo qalaan maalmahaasi ayadana acmaasha ugu fadli badan bay ka mid tahay laakiin inaynu qodob ku baraarugnaa laga maarmaan ah qodobkaasi waxa weeye ciddii rabta oo ku tala gashan in ay udxiyeysato xoolo qasho maalinka ciidda iyo wixii ka dambeeya ruuxii saa ku tala gashan bishu hadday dhalataba bishuba hadday soo gasho uma bannaana inuu timihiisa iyo ciddiyihiisa wax ka gooyo ilaa uu udxiyaysto wax qalo markuu qalo udxiyada kadib buu timaha iyo ciddiyaha hadduu markaa u baahdo goyn karaa bishu intayna soo gelinna waa goyn karaa laakiin hadday bishii dhalato aadna ku tala gashan tahay inaad udxiyaysato timahaagana ha taabanin ciddiyahagana ha taabanin xataa hadday kugu baxaan sidaasii xadiidka nabigeenna ay ku sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii haysta wuxuu gowraco oo inuu gowraco doonaya bisha dilxija markay dhalato yuusan qaadin wax timihiisa ka mida iyo ciddiyihiisa ilaa uu udxiyeeyo buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh guud ahaan maalmahani waxaa fadliga siyaadadaa loo siiyey sida uu leeyahay xaafid ibnu xajar calayh raxmatullah waxaa dhexdooda ku kulmaya acmaal aan kulmin aananna kulmi karin sanadka intiisa kale maalmaha waxaa ku kulmaya acmaashii oo dhan baa kulmaysa salaaddii soonkii waxaan dhihi lahaa muxuu ahay sadaqadii iyo xoolihii la bixinayey sidoo kale soonkii xajkii iyo acmaashiisii arkaantii shanta ahayd baa isu imaan karta maalmahan iyaga ah iyo acmaal kaloo ka siyaadsanba sanadka intiisa kale maalmo ay isu imaan karaan intoodaasi kuma jiraan saas daraaddeed baa fadliga siyaadadaa loo siiyey insha allahu tacaala inaad ku dadaashaan baa la doonaya soonka maalinta sagaalaad keliya waxaa sunno uu u yahay dadka aan acmaasha xajka ku dhex jirin xujaajta carafo taagan ayaga inay soomaan sunnadu ma aha صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين